السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة الشرف ترى كسو دوادا channel كيغا أميرس كوكينج. أصحابتي قرح بدن ما انتو حاني ودا wax caloosha idin ka jaraayo maalmo badan ay iga soo codsateen ma sha Allah maanta ii suurta gashay inaan idin soo galiyo asxaabi ma rabtaa inay caloosha ka go'do adoo wax gym ama exercise suubinin adoo gurigaada iska fadhisid inay caloosha ka go'do ma rabtaa alaabtan insha Allah isku dadaal soo dhawaada yar ismartigeynin haddaad igu cusubtiin fadlan subscribe iyo saara kan baleerkana taawada saa daawadaha ugu horeeya aad u noqotid haddaad hore ila joogtayna please like ta hanaga baqeelin insha Allah soo dhawaada gacmo furan qalbi furan iyo niyad saafi ah ku soo dhawaada asxaabteyda qaaliga ah asxaabteyda alaabtan inta uga jeedin ayaa caloosha si degdeg idinkaga jareyso hada sidee taa u isticmaashin loogu talgalay insha Allah faa'iidooyinkay leeyihiin gadaal ayaa idinkaga sheegi doona soo dhawaada ha laga faa'iideysto hadad keeshina please saan hore in kugu sheegaba like ta hanaga baqeelin soo dhawow gacmo furan insha Allah asxaabta qaaliga ah meesha waxaan ku haystaa qorfe qof kasta qorfuu ka saaya guri kastana lagama waayo qorfahan ayaa maanta ka sameyneynaa biyaha idin soo tusay asagan soo shiiday isla asagii leen qaatay mashiinta juuska mashiinta oo heelka loogu talgalay ama qorfaha ayaan kusoo shiiday maasha Allah waa u jeedin saas ayuu kusoo baxay qofkii aan heli karin asagoo geed waxaad soo gadan kartaa asaga oo buda insha Allah sidoo kale inta waxaan ku haystaa sanjabiilka caloosha wuu jaraa si degdeg u jaraa sanjabiilka iyo liinta marka ha laga faa'iideysto alaabtana idin tusi doono dhan caloosha si oo dhaqsi kaaga jarayaan sidoo kale meeshan waxaan ku haystaa liin dhanaan asxaabteyda qaaliga intaan ayay ka kooban yihiin alaabtii maanta caloosha ku jari lahayn waxyaabo badan oo caloosha lagu jaro waa idin soo galiyay laakiin tan ugu fudud oo gurigaada ka heli kartid oo degdeg caloosha kaaga jaraayo waana alaab oo masha Allah qareer ahayn qof kasta wuu cabi karaa laakiin hal qof aan cabi karin oo lagu talgalin hooyada oo nuujiso laguma talgalin inay alaabtan cabto marka insha Allah ha laga faa'iideysto asxaabteyda qaaliga ah hadda digsigan kusoo shubay qorfihii ayaan hadana oo shiidnaa ayaan kusoo shubaya insha Allah qiyaasta aad garan kartid hal qaado hadaarti hal qaado ku shuban kartaa lama koob hadaartidna laba qaado ku kala shubaysa insha Allah sidoo kale geeska waxaan ku haystaa biyo waaye koobkaas oo buuxo waaka asxaabteyda qaaliga ah intaan ayaan waxaan rabaa inaan dabka saaro si fiican u karkaraan dhindhin isku noqdaan insha Allah marka ila socdo dabka ayaan saareynaa markay si fiican iskugu soo karto insha Allah is arki doonaa asxaabteyda waatana ayagoo buraayo xoogaho dabka u dheeray si ay si fiican u karkaraan yacni dhindhin u noqdaan biyaha cabaar markay karaan ay fiican yihiin sanjabiilka iyo qorfihii markuu dhaxda ka gal maasha Allah carafta iyo wixii dhan kaaliska arag marka waa u jeedin wax yaraan sugayaa inta si fiican uga burayaan adii ilaa maximum waxay saarnaanay 3 daqiiqo 4 daqiiqo markay soo buraan kadib saas loo ogaado waana bursiineena insha Allah asxaabi waxaan rajeynayaa inay ila socotiin biyaha waa u jeedin ما شاء الله أصحابتي قروح بدن سفي عن أيو كرين سأوجدين بحنبضة أوجدين هادو حان سمينينا وانو كدجينينا ساسلو أقاذو وان كسو دجينيا إن شاء الله صلابانينا داودة الشيدة ما شاء الله أصحابتي قروح بدن وان كسو دجيي كوبا انت صوريكتي ما شاء الله وانو ميرويا مربي قلفي وحيابيني كوب كورعان مركواد اسكميريسا أديغان سيدو كله hadaarad koobka waa buuxsan kartaa hadaarabina wax yar ayaad ku shuban kartaa koob yariis jiro kan weyn adin kale in ku tusaya laakiin koobkaas yariiska ah ayaad ku cabaysaa subaxii markaad soo kacdid kaas asxaabteyda qurux badan waxaan ku darayaa malabaan ku darayaa suudhadan wanaagsan u yeesho malab
waa kasa sidoo kale sokor ha iskaga darin. Sokor waxa la dhahaa ku darin daad in caloosha iska jartid. malabkii aan ku daray sidoo kale liin dhanaantan ayaan ku dareynaa insha Allah. liin dhanaanta caloosha way jartaa asxaabteyda qaaliga ah. fiidiyoyaal badan aan idin soo galiyay oo liin dhanaanta ku saabsan marka insha Allah kan maanta liin dhanaanta waan ku darsanayna insha Allah sidoo kale. marka waad iska miiraysaa qolfaheeda. waa kasa asxaabteyda quruxda badan ma sha Allah gees iska dhigay. asxaabteyda qaaliga sharafta leh alaabtan subaxii adigoo afkaaga qabtid ayaad cabaysaa. subaxii markaasaan soo kacday adigoo afkaaga qabtid ayaad cabaysaa ilaa hal saac ayaa ku joogaysaa. markaas kadib ayaad cunto cunaysaa. cuntooyinka cunaysidna insha Allah ha ahaada cuntooyin protein iyo vitamins leh oo laakiin saliid lahayn. insha Allah saliida ha la iska ilaaliyo. sidoo kale duhurkii markii la gaaro intaad qadaynin ka hor ayaad cabaysaa biyahan. waad samaysanaysaa mise waad badsanaysaa tarmuus yaraa samaysanaysaa waad ka shubanaysaa insha Allah. biyahan aad ku anfaci doonaan way ku caawin doonaan caloosha si degdeg ay kaaga jarayaan adigoon wax exercise ama gym iyo birar iyo wax qaadin oo gurigaad iska fadhisid ayaa caloosha ka jaraysaa. marka insha Allah waxaad iskugu dadaashaa inaad cabtid oodan iska hilmaamin bil gudaheeda ama 2 bilood haddaad toos u cabtid way ku caawin doonaan insha Allah biidnillah. marka asxaabteyda qaaliga ah biyahan wax sokor ma lahan waa iska biyo caadi ah oo qandace ma sha Allah. marka ha laga faa'iideysto ha la soo tijaabiyo. sidoo kale asxaabteyda quruxda badan hooyada oo umusha ama ilmaha nuujinayso biyahan ha iskaga fogaato. cunugaada haduu yar yahay biyahan isku cabin maadaama oo adi ku nuugayo ma fiicna inaad dhanaantaani waxaana cabtay inuu ka nuugo. cunuga waxa la rabaa inuu wax caafimaad leh uu ka nuugo. marka insha Allah cuntooyinka oo protein ka leh badso hooyada uurka yacni hooyada umusha ah ama oo cunuga nuujinayso alaabahan iska dhaaf laguma talgalin. marka asxaabteyda quruxda badan sharafta leh waxaan ugu talgalay gabdhaha raba inay iscaateeyaan ama caloosha iska jaraan. alaabtan waad cabaysaa. qofkii oo exercise sameyn jiray waad samaysan kartaa exercise-kaada alaabtan waad cabi kartaa ma sha Allah sida ugu fudud degdeg kaaga sii go'aysaabo. laakiin haddaad aan rabin inaad exercise suubin ood guriga iska fadhisid waad samaysanaysaa laakiin waxaad iska ilaalinaysaa cuntooyinka oo saliida badan aad samaysatid guriga samaysatid iska yaray saliida iyo waxyaabaha ku dardaraysid marka insha Allah adigana way ka go'aysaa caloosha. sidoo kale daawadayaashayda waxaan soo galiyay hadda ka hor liin dhanaan iyo biyo oo qandac oo si adi biyo oo ma sha Allah abaayooyin ay dheh way caawisay. haddaa rabtiin videogaas linkiga waan ku soo galin karaa ma sha Allah. biyaas dad badan ay caawisay aad iyo aad u mahadsantiin saa support gareyseen ood u fiirsateen videogaas ma sha Allah dad badan ka helay. qofkii raba inaan usoo galiyo biyahaas linkiga waxaad igu soo sheegi kartaa comment-ka hoos waan ku soo galinayaa ma sha Allah. sidoo kale daraad waxaan soo galiyay alaab oo caloosha jarayso oo laakiin ka duwan tan alaabtan iyo alaabtaas tanaa igala sii fiican. marka insha Allah aniga tanaa ka helay soo tijaabiya bil ama 2 bil gudaheeda caloosha way idinka go'aysaa. asxaabteyda quruxda badan yaa lismartiyeen ha laga faa'iideysto videoyaasha idin soo galiyo ma sha Allah way idin caawin doonaan. waadna iisoo duceyn doontaan biidnillah baari. asxaabteyda waxaa rabtiin inaa idin soo galiyana comment-ka hoos igu soo qora. iscaateyska qurxinta cuntooyinka waxaad rabtiin ma sha Allah diyaar ayaa idin ahay waa idin soo galinayaa. biyahana la iskugu dadaalo yaa la iska hilmaamin subaxii duhurkii iyo casarkii yacni markaad cashaysid kadib intaad seexanin ka hor ayaad cabaysaa. may fahamtay. casarkiina waxaa fiicanba cuntada cashada inaa la cuno 12 iyo bar markaas ayay fiicantahay in caafimaad leedahay. laakiin inta cunto saliid la cuntid 5 saac ama 6 saac habeenimo aad ku seexatid dhibaato ayay ku keenaysaa. jirooyin badan ay keenaan waxaas ma fiicno iska ilaaliya. intaad seexanin ka hor markaad cashaysid casarkii ama maqribkii kadib cabiyahan ku seexo.
caloosha daarut inay si degdeg kaaga go'do daawadayaasheeda quruxda badan videoga hadduu kusoo gaar aad ka heshid please like intaan video kale ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh